I'm shaking. وانقريرة شجعها يسوي Hey, I want to go up there. وحارب أين هالكاس ركره كان نكو ودي مرة بتابو يري Yeah? يس واربع No, ها nothing is hard. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sheekada maanta aynu hayno waxa weeye sheeko ka yaabisay caalamka oo dhan hadday yihiin gaalo ama hadday yihiin muslimiin waa mucjizo weeye mucjiza subxaan allah mucjizad weeye boqolaal videos ayaa laga sameeyey intaasoo youtubers oo jinsiyad kasta ah ayaa ka sameeyey oo ka hadlay laakiin maanta waxaan doonayaa videoga inaan af soomaali inoogu turjumo hadallada uu ninkaasi ku hadlay yani waa wax xaqiiqatan wadnaha taabanaya yani talmis alquluub yani waa qisa عجيبة وي عجيبة سبحان الله نور على نور وحوية وهداية من الله وي إلهي سبحانه وتعالى قفكو هداية للربا وسينية بل قصة دا إنه وضداونه وأن ترجمي عليك سلام الله يا خير زائر تصر بممشاه إليها الأماكن أيضا قصة داون إن شاء الله كنت ذلك كنالك إلى سبسكرايب كسرتان أتسين الشركة لسان شيء كذا لأنه حقيقة وحلقة أبا إنه إلهي يعني وكاغر دقو السبب إن أي دد بدن أو أنا المسلم هاين إن دين الإسلام كسوق لان شركة إن ملك استجادو يكون نقطة صدقة جارية قيامها أنا إلا قلت سو كم يلقف أو دين الإسلام كسوق لي أدونا السبب واحد لأنه الفيديو كان حقيقة تدفر بدن أو قالا يكون مسلمين يعني سو نكو وهذا اللي يعب عجيبة بل أينو قصة دا أينو بلونه إبراهيم ريتشموند وانين مسيحي أهانشري أو دين الإسلام كسوق علي وانين مسؤول كأه كنيسة كمدة كنيسة ودنك ساوث أفريقيا أو دين مسيحي قفافية مسلم بو نقضي لباب بلود كهر marka wuxuuna noqday mid kamid ah dadka lagu soo dhaweeyay oo lagu martiqaaday xajka uu bixiyo boqor Salmaan barnaamijkiisa sanad kasta waa markii uu yimi Makka al-Mukarrama ninku documentary baa laga sameeyay markii uu xajka yimi buurihii Makka ayuu yimi oo waa yaabsan yahay taban wax yani uusan weligii arag ayuu arkay سجدة للمولى سبحانه وتعالى إلهي سجوديا وأدركت أن سدو إنه سبحان الله إنه إيمانك قلبي يسجلي So I've been a priest for 15 years now, leader of the congregation. It's got about 100,000 followers. wuxuu yiri waxaan ahaa baadiri 15 sano ayaan kaniisad macnaha ka shaqeynayay oo mas'uul ka ahaa waxaan hogaaminayay dad aad u fara badan oo kaniisada jooga waxayna ahayd South Africa kaniisadana waxa ku xiran dad aad u fara badan oo ilaa 100,000 oo qof oo ku xiran kaniisada oo taabaca oo wax kasta uu qabto meel kasta uu maro ay maraan macnaha wuxuu u ahaa amiir buu ahaa ama uu hogaamin jiray Until I had a dream. wuxuu yiri sheekadu say u socotay ilaa aan riyooday hatta jaana al-hulm ilaa aan riyooday Sleeping. waan hurday And I'm hearing this voice. I was sleeping in the church. It's a small room, a small piece of room. wuxuu yiri waan hurday kaniisada gudaheeda ayaan hurday qol yar baan ku jiray oo kaniisada gudaheeda ah Then I heard this voice. markaas waxaan maqlay codkaas ayaa riyadii igu yimi It says, tell your men to wear white coat dress. u sheeg raggaaga macnaha dadka la socda followerskiisa ee la shaqeeya tiimka kaniisada ku jira inay gashadaan al-libaas al-abyad macnaha dharka cad ha gashadeen iyo cimaamada cad ha gashadeen waa la amray Coat dress. I said, oh, Muslim. markaasuu yiri muslim ma dharkii muslimiinta Muslim head. Then I said, it's just a dream. waxaan iri tani waa riyo weeye waxaas wax dhici kara ma waa riyo weeye He came again. mar dambe ayaan haddana riyooday oo mar dambe haddana la ii yimi And again. And the last time, haddana mar dambe laakiin markii ugu dambeysay maxaa dhacay this voice became aggressive now. Tell your men. codkii uu sii adkaaday codkii igu lahaa u sheeg raggaaga wuxuu noqday cod ay ku jirto hanjabaad oo kale aggressive ah oo sidii hanjabaad oo kale ku jirto Tell your men. u sheeg raggaaga Then I went. It was a congregation. I said, now
I'm going to these people, I'm going to markiiba waan aqbalay khalaas wuxuu yidhi iminka waxaan u tegayaa jamaacaddaydii ama raggii igu xidhnaa ayaan ugu tegayaa kiniisadda waana u sheegi doonaa let them believe. waa inayna aqbalaan arrintan aan u sheegi doono Then I went there. markaa waan u tegi Then I told them, haddana waan u sheegay you know how Allah made it easy. ma aragtaa siduu ilaahay subxaana wa tacaala inuu ii fududayay arrintaa easy iga dhigay They just accepted. subxaan allah kulligood way aqbaleen dacwadii uu u keenay inay soo galaan diinta islaamka All of them. kulligood When the next meeting came on the next congregation, markii ugu horreysay waanu is aragnay shir baa dhacay markii uu yimid shirkii labaad maxaa haddaba dhacay everyone was wearing it. White kurtas. kulligood waxay gashanaayeen dharkii caddaa ee la igu yidhi raggaaga u sheeg inay dharkaa gashadaan And all those they accepted. They accepted. kulligood wuxuu yidhi diinta islaamka way soo galeen 3 months ago, I made the shahada in the church. wuxuu yidhi 3 bilood ka hor islaamkan soo galay oo ashahaatay aniga oo jooga kiniisadda gudaheeda They were supporting what I was saying. kulligoodna waxay support gareeyeen waxa aan leeyahay way iga daba yidhaahdeen kulligood markii aan shahaadada sheegayay So saying it, those 1,000 voices, kumayaal kunoo cod bay ahaayeen one giving the shahada with me. kulligood shahaadada iga daba yidhaahdeen halkaas waa south africa weeye waad aragtaan kulligood ninkaasaa moogtahay sabab u ahaa inay diinta islaamka soo galaan kumayaal qof marka qiyaamaha waxay noqonaysaa fii saxiifat xasanaati bay noqonaysaa ilahi subxana watacaala saxiifadu ugu qoraya waa cajiib subxaan allah bal nimcada daawo We were happy. Then kulligaygay happy baanu nahay mabsuudiin baanu nahay farxad some Muslim brothers coming. kadib wuxuu yidhi waxaan arkay qof muslim oo walaalkay ah ayaanu aragnay I said, I've been waiting for you. markaasaa waxaan ku idhi لطالما انتظرتك يعني إن بدن بنكسوجي إذا نكن مسلمين بهذا الكاله I've been waiting for you. وانكسوجي بويري وانكسوجي I had a dream وانا الرياضي that you'll إن إيمانيسيد come here. إنت هاير أنا نقصه عليو إيموشن عجيب وي That you'll come here. عجيب When they told me you are going to Hajj, I said, oh, me? marka wuxuu yidhi markay igu yidhaahdeen biannaka daahimun ila alxaj xajkaad tegi doontaa waxay ugu bishaaradeen inuu xajka tegi doono marka wuxuu yidhi markay igu yidhaahdeen xajkaad tegi doontaa wuxuu yidhi ma aniga maba rumaysni I can't go there. I won't go there. ma u malayn maayo ma tegayo meesha ayuu yidhi And when the day came, ma uusan rumaysanayn laakiin wuxuu yidhi maalintii la baxayey markii la ii yimi they say you are leaving. waxay igu yidhahdeen waad tegaysaa haddaad baxaysaa I said, leaving away. markaasaan idhi ilaa ayn xaggaan ku socdaa You must be joking. waad kaftamaysaa buu yidhi macquul ma aha This is not happening. ma dhici karto wax dhici kara ma aha It can't happen. waa ka ninkii makal mukarama soo galay tawakaa la soo dhoweeyey si fiican baa loo soo dhoweeyey Peace be upon him, Muhammad. rasuul allah maxamed sala allahu calayh wasalam When we went up here, he was alone. markuu halkaas soo maray nebigu ka hadlay sal ly slam markuu halkaas soo maray keligii buu ahaa waa nebigeenna sala allah alay wasalam I will follow the footsteps. raadkiisii ayaan raacayaa buu yidhi raadkii nebiga sala allahu alay wasalam ayaan raacayaa cajiib And I believe by following these footsteps, millions of my people in South Africa will follow these footsteps. subxaan allah wuxuu yidhi waxaan aaminsanahay raadkiisa iyo khatawaadkiisa iyo meeshuu nebigu maray inaan mari doono dariiqiisii raaci doono sida aan u aaminsanahay in ay malaayiin dadkayga ah south africa inay iyaguna raaci doonaan maa sha allah To see the light. si ay u arkaan nuurka This is the mountain of light. waa jabali nuur buurtani waa buurtii nuurka ee nebi maxamed sal slam uu tegi jiray I am the first one in my family waxaanay qofkii ugu horreeya ee faamiligayga to touch here. waxaanay qofkii ugu horreeyey ee faamiligayga ee halkan taabta subxaan allah This soil, this blessed soil. ciidan muqadaska ah qofkii ugu horreeyaan ahaa ee taabta ee faamiligayga ah The mountain of light. Light Yes. from this the mountain
started the light. nin baa la hadlaya wuxuu leeyahay buurta aad aragtid jabal nuur ayuu ka biloomay islaamku That's why I brought you here. sidaa awgeed buu yidhi ayaa meeshan aad taagan tahay kuu keenay Hey, I'm shaking. waan gariirayaa jirica hayse buu yidhi Hey, I'm shaking. am shaking I want to go up there. waxaan rabaa inaan halkaa sare koro markaa ninku uu weydiiyey ma rabtaa buu yidhi Yeah? yes waa rabaa No, ha nothing is hard. ninku wuxuu ku yidhi way adag tahay buu yidhi inaad meeshaa sare kortid wuxuu yidhi may buu yidhi wax adag ma jiro buu yidhi nothing hard buu yidhi When you have that heart, nothing is hard. wuxuu yidhi haa marka aad wadnaha adag haysatid wax kugu adkaanaya ma jiro macnaha wadnahan iimaanku ka buuxo marka aad haysatid wax kugu adkaanaya adduunkan ma jiro I want to go up there. You want? Yeah? It's hard. No, nothing is hard. When you have that heart, nothing is hard. In the name of Allah, nothing is hard. He make it easy for me. wax ku adag ilaahay ma jiro buu yidhi ilaahay idankii waan kari karaa ilaahay waxba kuma adka buu yidhi subxaana wa tacaala wuuna ii fududayn doonaa inaan buurtaa koro buurtii waa kaa ninkii waa koray maasha allah I'm happy for that. aad baan ugu faraxsanahay buu yidhi To feel the Hajj. inaan meeshan imaado in xajka imaado tajribad fiican bay ii ahayd I am so happy and lucky to be given that chance while I'm still here. aad baan ugu faraxsanahay waana ninna sii fiicanna baan ahay in jaaniskan oo kale aan helay Because there's no chance there. sababtoo ah jaanis kale ma jiro hadhowto jaanis kale ma jiro marka adduunka laga tago macnaha يهدي الله لنوره من يشاء subxaan allah Yeah. He is the light. wakaa nuurkii buu yidhi He is our light. He is my light. He's the light of this world. waa nuurkeennii buu yidhi waa nuurkii adduunka Let his light shine all over the world. waa nuurkii adduunka nuurkiisu meel kasta adduunka ha gaadho And he forgives us all our sins. inuu ilaahay inoo dembi dhaafo dhammaan cajiib subxaan allah fideoga qof kasta u diri kartaa sababtoo ah ninku wuxuu ku hadlaya af english af carabina waa lagu turjumaya waad ka aragtaa hoosta af soomaaligana waa aniga ku turjumaya marka qof kasta waa u diri kartaa si uu uga faa'iidaysto hadduu yahay qof ajnabi ah ama qof soomaali ah muhiimadda waxa weeye inuu fideogaas dadkao dhan gaadho insha allah ilahay waxaan uga rajaynaynaa inuu ilaahay subxana watacaala tathbiit inuu qalbigiisa ku adkeeyo iimaanka ninkaas waa nin nasiib fiican weeye waa nin nasiib fiican يعني كوميال كن أو ساوث أفريقيا أي إسلام كسوق علي وين سوق سعدان كوكلنا وين سوق سعدان بإذن الله تعالى قفك المسلم كأهين مركو دين الإسلام كسوق على سبحان الله نلش يسوي إسبدشة فيديو أنت سوق كل ماضي مركا إلهي دين بركيو فيديو غاش شير قرية هاي نقطة صدقة جارية نقطة سدو نينكا سنور كواركي أو كوميال قف دين الإسلام كسوقري وحلقة يابا أديك أو جوريا إسكفر ليا مركا بدن كاشير كله فتيد إني كوميال كونوا أجنبي جاران ayaa dhici karta kumayaalkiina kumayaal kale u sii diraan oo uu gaadho dadka oo dhan oo aad yoom alqiyaama saragtid adiga oo yacni xasanaadkaagu maasha allah buuraha ka badan buuro xasanaadka inaad aragtid qiyaamaha oo ay u sabab ahayd in dad badan diinta islaamka soo galeen waana waajib baynu ku tahay addacwa ila allah wey meel kastaan joogno markaad adduunka ka tagtidna dacwadii qaybaad ka qaadatay oo ilaahay markuu ku weydiiyo diintii maxaad u samaysay dadka ma sheegtay ma gaadhsiisay waxaa la arkayaa inaad dad badan u sheegtay oo ay diinta islaamka soo galeen oo aad adiguna sabab u ahayd khayrna waa idiin rajaynaya dhammaan waana walaalkiin axmed aadan weeye wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته لك الشكر العظيم يا إلهي وحمد عد حمد الحامدين إلهي يا كريما في العطايا ولسنا للعطاء مقدرين إلهي